السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين السلام يا ميلاد شوكتان بدمانتين. إلهي يدكو السلام يا إلهي إذن كيس بإذن الله. سومالي ما أنت مالين تلادة بشنا يكوت هاي بش مسلمك. إلهي نبدي يلا ميل أنشوقنا بإلهي إذن كيس ميل أنشوقنا بإلهي نكون نبدي يلا إن شاء الله بإذن الله. إلهينا هينكو حفظو الدنيا آخرنا الله هينا أسترو عيبتني عيبت إسلام كان الله أسترو إلهي إذن كيس بإذن الله ميلاد شوكتان بالصومالي ويد السلام هيا وأم خالد ويي الله يديكو السلام هيا إن شاء الله بإذن الله. ما أنت مشغل كيبان شوقا الحمد لله وافي عنا هاي إلهي بان نقونا أكسن الحمد لله والشكر لله. صومالي ما أنت موضوع عن كهلي وحاوية صومالي labadan bari waxaan maqlayaa qabiilo isdagaalayo meesha la yiraahdo warwar isku dagaalaya iyo xaqaan muxuu hayto meesha la yiraahdo la sacaano xageeda waxaan maqlayaa odayaal xamar ka hadlaya oo maaragta madaxweynayaal soo ahaan jiray inaan mowduucyadaas oo dhan ka hadlaan rabaa hadii ilaahay yiraahdo ilaahay haduu idankiisa ay ku noqoto ilaahay idankiisa dhammaantiina waxaan jeclahay inaad ila dhageysataan ama ila wixii talo iyo tusaale aad ka soo dhiibataan ilaahay idankiisa waa aniga raayigayga gaaban ayaan haddii alla idmaan rabaa inaan ugaga hadlo ilaahay idanka idinkuna wixii maaragta talo iyo tusaale aad ii soo sheegi kartaan wixii aan ka tagay iyo wixii aan ka weecdayba insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala meelaad joogtaan baadinkana haydu ku nabad yeelo intii dhibana dhibta Allah ka saaro intii wanaagsan Allah u siyaadiyo insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta warwar ka jirto ama maxaa la sacaano meel ay ka tahay ma aqaan inaan ka hadlo hadii alla yiraahdo waxa weey Soomaalida halkaas degan qabiil walba ha sheegteen qabiil walba ha ahaadeen waxa weey waa dad walaalo ah aqriya adduun wax la iska weydiinayo sababtay tahay intaas oo qarni markii Soomaaliba Ilaahay meesha ku abuuray dad wada degan oo wada nool oo ku wada meesha ku wada cayshay ahaayeen dad waxay ahaayeen aakhiraya adduunba wax la iska weydiinayo sababtoo waxa weeye nin walba ninka dariskiisa iyo jiiraankiisa ayaa wax laga weydiinayaa aakhiro la su'aalaya maanta marka waxay isku dagdagaalaan iyo waxay isku qabqabsadaan iyo waxay barkadaha isaga gubaan iyo waxay guryaha isaga furtaanba waa wax dhib badan oo khalada weeye Soomaali haday dagaal iyo khayr ay ku leedahay dagaal iyo dib haday khayr ku leedahay hore ugu faa'iidi lahayd 30 sano ay soo jafaysay ninna ma kala ab fiicna ninna ma kala awow fiicna waa Soomaali waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkaas ku wada dhaliyay oo ku wada abuuray oo ku wada koriyay halkaas ku wada nool yihiin maanta inay isku dagaalaan wax masqaala daratina iyo muxuu degma hebel dhistay iyo dhulkaas Ilaahayna dadkaas horta Soomaalida waaba uu ka badan yahayba dhulka Soomaaliyeed nin walba meeshii Ilaahay ku beeray inuu degan yahay oo ku nabad qabo waa xaq weeye xaawi aadan baa wada dhalay wax abiy asuul ku kala weyn oo ku kala horeeya midna ma jiraan meeshana waxa weeye waa meel ay wada degan yihiin oo ayagu aakhriya adduunba wax la iska weydiinayo sababtay tahay dariskaaga kuugu dhow baa aakhriya adduun nabigeena Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhaxalka haddaan dhib ka imaanay waxaan dhihi lahaa hay sadexleen maanta waa dad adduunyo aakhir wax la iska weydiinayo ayaga biyo wada cabay ayaga geed neef wada daaqay wada cunay ayaga muxuu hayto ku wada nool meesha ayaga Ilaahay ku abuuray subxaanahu wa ta'ala inay dambi iska galaan maahan nin barkadu maskiin oo barkadu qotay laga xabaalo maahan sababtoo waxa weey waxa laga yaabaa barkada asaga laftigiisa kan xabaaliyo laftigiisa inay ficilado bir asaga oo minuu ka cabilaha inuu ku taageero war yiraahdo barkada inuu ninka la qodno birba waynu ka cabi karnaa taasay ahayd maahan in laga xabaalo waxa weey Soomaalida halka joogta waxaan ugu baaqayaa inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga baqdaan inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u noqotaan ninka ma aproona ninka ma awoow fiicna nin walba waa nin 9 bilood ku dhashay Ilaahay baa meesha ku beeray waa dad walaala waa dad ab iyo ab baan ku meesha wada deganaa waa dad ab iyo ab soo wada noolaa waa dad ab iyo ab baan ku soo wada cayshay weeyo oo meeshaas la isba xijin jiro la dhigi jiray maxay tahay ilaa iyo waagi darwiishka iyaga wada dagaalami jiro halka dagaalka wixii dib wada midoobi jiray
maanta marka waxa weeye qabiil kama horeeyo qabiil waaba xaraam in la sheegto qabiil sababtay tahay wuxuu xaraan ku yahay haduuba dagaal iyo dulmi galo waa xaraan buu noqonayaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala hal la isku aqoonsado yiri maahan in la isku gumaysto maahan in la isku dagaalo maahan in dib la isugu sameeyo marka waxaan leeyahay walaalahayga halkaa ku dagaalamaya qolo kastaba ahaadeen waxaan leeyahay Soomaaliya meel aad joogtaan dagaalku waa dulli maahan khayr maahan dulli weeye adinka aakhiro la iskiin weydiinaya maanta inaad qabqabsataan oo isdagaashaan oo biyaha iyo baadka iska xirtaan maahan ilaahay isaga baqa ninka ma awoow iyo ab fiicna dagaalna waxa weeye waa dulmi la kala galahay Soomaali ku kala rayn weyday inta waa la isjafaayay nin uga magaciisaysan malahan marka waxaan leeyahay ilaahay isaga baqa waxa weeye dagaalka halkaas ka socda hal la joojiyo Soomaali hadaan ay raali kama nihin meelan joognaba intii maqasho YouTube-kaas ka maqashaba waa ka xumaanaysa maanta dagaal cid u baahan ma jiro wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxa weeye marka Soomaaliya ilaahay isaga baqaan idin leenahay dhamaantayo wixii Soomaaliya oo maqla muxuu haytaa arintaasna ka jawaabo ha ka hadlo ha ka muxuu hayto ha ka qayroodo sababtay tahay dagaal maanta cid u baahan ma leh maanta nin dagaal rabo ilaa muxuu hayto afmadow ilaa muxuu waxaan leeyahay meesha Soomaaliya Kenya ugu dambaysa iyo meesha ugu dambaysa baladiyada kale maanta nin dagaal u baahan ma leh dagaal wuxuu yahay waa soo ogaanay dib waxay taa waa soo ogaanay qarax iyo ismiidaamin iyo isbaabiin iyo muxuu hayto qax waa soo marnay haday khayr iyo sharaf leedahay waa soo aragnay maanta nin u baahan ma lahan waxaan leenahay maanta dagaal ciduna uma baahna ninkii dagaal ku dhawaaqa asaga un bay kaligiis ku ahaanaysaa ninkii dib ka taliya asagay bari ku ahaanaysaa dunya aakhiraba ninkii dib ku dhawaaqa asaga iyo gurigiisa ka shidnaanaysaa insha Allah an Soomaali la soo gaari maayo biidmillah waxaan leeyahay Soomaaliyay waa in dib laga hortagaa dib ilaahay ma banaynin waa in laga hortagaa annagu ma doonayna dib haddaan Soomaali weynahay ma rabno dib ma rabno dagaal ma rabno muxuu hayto hebel baa qabiil ku duulay barakadaha la kala xabaalay guriyaha la iska qaatay adduun baa la isugu duulay maanta ninna ma rabo ninkii dulmi iyo balaayo raba asaga ku baxaya kaligiisa ku baxaya diyaarada korkayga marayo oo ana waxba la maqlay iga raali ahada dad wax ka maqal weydaan codkaygaas alashan diyaarada korkayga maraya marka Soomaaliya waxaan idin leeyahay ka midooba dagaal iyo masaa'ib ka midooba oo ka diida dhalinyaradu waa inay ka kacdaa waa inay ka hadashaa waa inay ka diidaa tirada dagaal anagu ma rabno odayaasha la xirxiro la sheegay la soo daayo dhibta hal la daayo ilaahay dib ma abuurin ninka ma xoog badan ninna kama awoowa fiicna 9 bilood baa lagu wada dhashay xaawiye aadan baa qaarkood waxa la ahaayeen miya ka jooga Soomaaliya isku dambaabina waa isku dambaawdeen isku aqriya adduunba seegteen baan idin leeyahay inta haddaan taa uga baxo waxaan kala rabaa inaan ka hadlo odayaasha xamar ka hadlaya oo muxuu hayto oo shirka ku qabsaday oo ku dhawaaqayo qabiilka ku dhawaaqayo maanta qabiil adeer cidna uma baahna qabiil cid u baahan ma leh cid rabtaa ma leh maanta haddii awowgayga aniga aabahay dhalay hadduu dagaal ku dhawaaqa asaga gurigiisa ka shidnaanaysaa kaligiisayna ku ahaanaysaa maanta nin dagaal u baahan annaga xamar ka soo jeedna ma rabno dagaal iyo masaa'ib cidna ma rabto maanta cidna dagaal ma rabto maxaa weeye dawlad baan leenahay nin walba 5 sano markuu dhamaato hadii la doorto ilaahay u qadaro ilaahay muxuu hayta samada ka soo yeeriyana waxa weeye wuu helin haduusan ilaahay subxaanahu wa ta'ala mid kale uu ka dhigana waa ku mahadinaynaa waxaan dhahaynaa kana meeshuu shalakii kala geeyaan dhahaynaa Soomaali maanta dagaal cidna uma baahna ninkii qabiil ku dhawaaqa asagay gurigiisa ka shidnaanaysaa kaligiis bay ku ahaanaysaa hal laga joojiyo dadka muslimka oo walaalaha oo isku afka iyo isku awowga iyo isku abka ah baan idin ka joojiye gabar yara oo ku dhalatay burcasalkeeda ku dhalatay baa dhiig laga qaaday Yurub Ameerika joogta dhiig laga qaaday wallaahi baan ku dhaarto magaca ilaahay baan ku dhaarto waxa leeyahay waxaad u dhalatay xamar baad u dhalatay ilaahan idinku dhaariyo dadka isku ab iyo isku awow maahan ka jooga marka dagaalka joojiya ad ku dhawaaqaysan adinkii dadka u waaweynaa Soomaaliyay madaxweynayaashii hore dadka ku dhawaaqayo dagaal iyo muxuu hayto anagoo reer hebel hal la joojiyo reer hebel meesha kama socdo ninkii raba dawladda inuu maanta madaxweyne noqdo hayso soo sharaxo hadii dadweynuhu doortaan madaxweynuhu nooya haduusan dooranin kursigaaga ku fadhiyo ilmahaaga hayso oo dadka ka mid noqo anigu saasaan leeyahay Soomaaliya hal laga joojiyo Soomaaliya waa qaran maahan qabiil waxba ma talo nin qaran wax ku waayay qabiil wax kuma helo
ninkii madaxweyne maanta isu soo sharaxaana qabiil madaxweyne uma ahana Soomaali weyn buu qabiil buu yahay madaxweyne kan jooga meesha ugu dambeeya kan meesha ugu dambeeya joogu madaxweyne uu yahay ma ahan inuu qabiil madaxweyne uu yahay hal laga daayo Soomaali waxa weeye ma ahan qolo kaliya meel ku xiran ma ahan hal laga joojiyo Soomaali waa Soomaali weyn ninka wiilka yar oo ku dhashay meesha ugu dambeeya Soomaaliya soo ordayo xamar yimaada sababtoo waa magaalo madaxdiisii ninka celin karaya ninka hor istaagi karaya dawlad goboleed ka hor istaagi kartaana male xamarra waa magaalo madaxdii Soomaaliya weeye waxay u dhaxaysaa ninka Jabuuti gabadha ku dhalatay iyo gabadha muxuu hayto NFD ku dhalatay xamar iyada iskale waxa way Soomaali baa iskale xamar waa magaalo madaxdii waa raaskii Soomaaliya raaskan qofka la gooyay oo raaska laga gooyay ma noolaan karo marka waxaan leeyahay Soomaaliya dib ha la isugu noqdo hal laga joojiyo Soomaaliya qaska haba meelyan u looga dhufan Soomaaliya waa Soomaali baa iskale waxa way Ilaahay waxaan uga baryaynaa nabadgelyo Ilaahay uga baryaynaa inay israacdo oo xaq fahamto oo Ilaahay isaga baqdo maanta xoolihii Soomaaliya ninkii xoolo muxuu hayto Araba uga soo qaata ama meel kale uga yimaada ama Ethiopia uga yimaada maanta waxaasoo dhan waa ka hormarnay waxaasoo dhan maanta waa ognahay maanta qofka iyaga ugu wiilka yar oo darbi jiifka uu ku hurdaa meeshiisa Soomaali inuu yahay uu ku hurdaa in wadankiisa inuu u dhinto inuu rabo wiilka yar oo darbi jiifka koolada nuugaya ha u malaynay in xiskiisu maqan yahay wallahi xiskiisa inuu maanta bal weydiyo waxa tiraahdaa Soomaali baa la soo weeraray ku dhahayo weydiiyo wallahi markaas bahasha xunta uu haysto tuurahaya dagaal hore ka galaya marka Soomaali waa Soomaali kan ugu dambeeya kan ugu horeeya waa walaal waa isku hooyo waa isku dhiig waa isku naf waa isku dhaqan hal laga joojiyo dhibaatada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa Soomaali inay midowdo Ilaahay waxaan ka baryaynaa hadaan hooyooyinka Soomaaliyeed nahay in Soomaaliya israacdo Ilaahay waxaan ka baryaynaa sharka iyo shuushka ku jira wadankayaga Ilaahay inuu ka saaro annaga cid noo danaynaysa male gaala noo danayn mayso islaamku badidood noo danayn mahayaan annagu Soomaali baan nahay meeshaas yar oo goobkaas yarkaayo Ilaahay nagu abuuray baan u taagana kulligayo ninkii madaxweyne oo hor yiraahdo waxaan hormarinayaa maanta indhahayagu waa furan yihiin shalay maanta ma ahan maanta qof walba indhihiisu kala hayaa wuu u jeedaa baan ku iri dhibaatada wadanka iyagii muxuu hayto lagu wadana anagu waa ka hortaaganahay waan afka iyaga hadaan adinka iyaga ku difaac weyn afka iyaga ku difaacina insha Allah Soomaali waa Soomaali maanta qurbaan waxba noo haynin oo ilmaha iyagii dhibaatada wadamada ka dhacaya waad maqlaysaan hooyooyinka ku dhacaya muxuu hayto nin Arab intuu ama muxuu hayto Ethiopia lacag ka soo qaato guriga ku taagtaan anaga dan noo ahayn annaga waxa dan noo ah kii muxuu wadanka iyaga dajiya waxa noo ah kii ilmaha iyaga hal qofna Allah ka dhigay madrasad lacag la'aan uu helo waad aragteen ciyaalkii meel walba in wax barasho loo geynayo waad aragteen kii jirada in dhakhtarada banaanka loo qaadayo waad aragteen muxuu hayto hadii Ilaahay ku idmayo adduunka waxa noo kala soconaya magac iyo muunadayada inay soo noqonayso maanta qabiil magac iyaga iyo muunadayada raba inuu ku cayaarana ka yeelimayno Ilaahumma aniga kii ila dhashay ahaado Ilaahumma aniga kii aan dhalay wiilkaygii muu ahaado ka yeelimayna maanta waa ka hortaaganahay maanta dib waa soo marnay dagaal waa soo marnay wiil isqarxiyo la yiraahdo jannaad 5 daqiiqo galeysabaan carabta waxay ku keentay muxuu hayto sheeko waxay ku keentay ninba muxuu hayto wiil baa waxa la yiri diyaarad ka dhacay mise baabuur baa la dhacay miyaa la yiri ma aqaan markaas dhakhtarkii markii la geeyay waxa la gabdhihii neeriska hayo kor taagnaa dharka cadcad qabo wuxuu mooday inuu dhintayba wuxuu maqlay muxuu hayto ninkii dhintaa xawraaricin 70 aha ugu imaanaysa jannada gabdhihii xawraaricintii 70 ka ahayd 70 ka ahayd buu mooday waxaan gabdhahan kor taagan oo dharka cadcad qaba xabba buu yiri mid ha iigu imaada mid iigu imaada buu yiri wuxuu maray gabdhihii marka Ilaahay inoo naxariisto dambigeena iyo dambi weeradkeen baa Allah dhaafo Soomaaliyeey dambigeena iyo dambi weeradkeen baa Allah dhaafo waxa weeye maanta waxaan ka yeelaynaa male aadana maanta waxaan ka yeelaynaa male wadanka iyaga rabnaa u soo jeednaa wanaagiisa rabnaa quruxdiisa rabnaa kii wanaajinayaana taageersanay oo daba soconaa kulligayo marka Ilaahay haydi salaameeye Ilaahay idankiisa jawaalka iga damdamahaya khayr baan idin rajeynaya insha Allah bismillah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh